kulan wacna wanaagsan qaarta wada nagala socotay meel walba joogtaan iyo si walba noo maqlaysaan ku soo dhawaada xogihii ugu dambeeyay dalka Ukraine dagaalka dalka Ukraine ayaa sii xoogaystay iyadoo duqeymo istaba joog ah Ruushku ka fulinayo magaalooyinka waaweyn ee Mariupol iyo Kharkiv iyo magaalada kale ee Kiev ee caasimadda dalka Ukraine madaxda NATO maxay ka sheegeen maxayse go'aan oo ay ka soo saareen taageeradii ay sheegeen inay muujinayaan ayna ku garab taagan yihiin dalka Ukraine madaxweynaha dalka Ukraine oo sidoo kale isagana ka hadlay go'aamada ka soo baxay madaxda NATO oo ahaa in ay doonayaan in ay xidhaan ama ay ka dhigaan aaga diyaaradaha ka caagan ama duulimaadyada ka caagan dalka Ukraine taasi oo isagana si weyn uga hor imaaday waxa sidoo kale warkeena idin soo gudbin doona duqa magaaladan weyn ee maalmihii ugu dambeysay duqeymuhu ay ka socdeen ee Mariupol oo si adag isagana uga hadlay duqeymaha Ruushku ka fulinaya magaaladaasi haddaba duqeymahaasi maxay yihiin yaase ku dhintay warkeena ayaad kaga bogan doontaan waxa sidoo kale warkeena aad ku maqli doontaan madaxda gaar ahaan dalka Mareykanka oo si weyn uga hadlaysa la markaana sheegay in uu isagu u dul qaadan doonin duqeymaha dadka rayidka uu la beeganayo Ruushka una sheegay in tallaabo laga qaadi doono haddaba tallaabadaasi maxay tahay warkeena ayaad kaga bogan doontaan waxaana stuudiyaha igula sugan Maxamed Wacane oo isha ku hayay dhaqdhaqaaqyada iyo dagaalada ka socda dalka Ukraine waxaana ku soo dhow santag aad baad u mahadsantahay dagaalada waan ogeyn inay socdeen madaxda uu Mareykanku horkacayo ama dalalka Yurub iyo Ameerika ee iskarabsaday sheegay in ay caawinayaan dalka Ukraine shirar istaba jooga ayay wadeen baaqiyo kala duwan ay ka soo saarayeen bal xaalka maxaa laga soo saaray maxayse waxa ay sheegeen inay ku garab istaageen dalka Ukraine tan iyo intii dagaalku u bilowday dagaalku maalintii 11aad ayuu maraya bal xaalku waa sidee aad baad mahadsantahay santago madaxweynaha dalka Ukraine ayaa khudbad uu ku weeraray NATO iyo sidoo kale madaxda reer galbeedka ayuu halkaasi ka jeediyay dalkiisa wuxuuna sheegay Zelensky wuxuu sheegay in laga dhigo dalkiisa aag ka caagan diyaaradaha asaga ayaa dalbaday balse madaxda NATO iyo sidoo kale ururada kale ee midowga Yurub iyo sidoo kale ururada reer galbeedka dhamaantood way ka hor imaadeen arrintaasina waxay suurtagal marnaba ma noqonayso waxaa ka hadlay sidoo kale xogayaha arrimaha dibadda ee wadanka Mareykanka Antony Blinken iyadoo uu ka saarayba in totally aaga diyaaradaha ka caagan in marnaba Ukraine lagu soo rogo arrintaasi wuu iska diiday Ruushku guulo waaweyn ayay u tahay in yani laga dhigo Ruushka dalka Ukraine laga dhigo aag ka caagan diyaaradaha sababtoo ana halkaasi wuxuu helayaa yani wadankii ku dhiirado oo ka dhigo arrinkaasi ama u ololeeyo in laga dhigo aag diyaaradaha ka caagan Ruushku wuxuu dhaar ku maray in wadankaasi dagaal toos uu ku qaadi doono marka arrintani Ruushka ayaad moodaa inay taageero weyn u tahay sida uu sheegay madaxweynaha dalka Ukraine wuxuuna sheegay haddii arrintani aad qaban weydaan midowga Yurub oo aad ka dhigi weydaan aag diyaaradaha ka caagan wadanka Ukraine waxay noqonaysaa in arrintii taageeranimadii ay waxaad ii sheegayseen inay halkaasi ku dhamaatay oo arrinku ay tahay yani sacabatun been ah marka dhammaanba wadamada NATO isku magacaabay iyo sidoo kale Mareykanka arrintaasi way iska diideen in ay ku garab istaagaan madaxweynaha dalka Ukraine oo dagaalkii keligii ku noqday markii horena Mareykanka iyo wadamada reer Yurub ay u sacabatumayeen oo lahaayeen gadaal ayaan ka taaganahay dagaalka bilow Ruushna tijaabadii waxaad moodaa in uu ku guuleystay tijaabadii ugu horeysay dagaalka uu ku qaaday dalka Ukraine waxaana dagaalka maalintii 11aad ayuu maraya dagaalkuna si toos ayuu u socdaa meelo toos ayuu u socdaa meelana diyaaradaha iyo duqeymaha ayaa si istaba jooga ugu socda madaxweynaha furimaha hore dagaalka ayuu joogaa isagana dagaalka dhinac ayuu ka wadaa Ukraine sidii loo maleynayay maysan noqonin oo iska caabin ayay samaysay dalalkii sheegay in ay iyagu garab taagan yihiin oo hili hoob ay la garab taagan yihiin bal tan iyo intuu dagaalku bilowday maxaa soo gaaray dalka Ukraine madaxweynaha dalka Ukraine wuxuu sheegay in ay ilaa iyo xilligan wax weyn oo taageero la taaban karo uu ka soo gaarin wadamada reer Yurub oo markii hore uu rabay inuu ka mid noqdo waxaa wadamo yar oo kooban oo uu ka mid yahay Jarmalka ayaa soo gaarsiiyay gantaalo 400 oo gantaala sida ay sheegeen warbaahinta dalka Ukraine laga leeyahay taasi oo ahayd taageeradii ugu badnayd oo wadan reer Yurub
uu siiyo markii laga reebo in ruushka loo cunaqabateeyo saxaafadaha laga cacayo yacni oo halkaasi laga daacideeyo wadamada reer yurub intooda badan warbaahintoodu ay halkaasi ku bahdilaan waddanka ruushka marka intaasi laga reebo wax kaalmo ah oo la taaban karo oo dalka Ukraine soo gaadhay ma jirto waxaa jirtay wadamo reer Yuruba ama ururka NATO oo isku aruursanayay waddanka Poland halkaasi oo ay ka difaacayeen Yurubta inteeda kale laakiin Ukraine ma jirto wax ciidan oo Yurub ay u soo dirtay ma jirto wax huba oo ay u soo dirtay midowga Yurub ay soo gaarsiiyeen ma jirto waxaad moodaa in ninka Zelensky madaxweynaha dalka Ukraine in intii quraanjadii lagu cariyay haddana looga dhaxbaxay waa hagaag wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka war qoraal oo ka soo baxay ayaa la sheegay in talaabo sharci laga qaadi doono Ruushku haddii uu duqeymaha dadka rayidka iyo beegsiga meelaha dadku ay ku badan yihiin ee gantaalada ku tuuray uu deyn waayo maxay noqon kartaa wacanow talaabada ay Mareykanku ku dhawaaqeen Mareykanku waxay bogaadiyeen ciidamada Ukraine qaabka ay iskaga difaaceen weeraradii Ruushku uu ku soo qaaday waxay sheegeen in yacni waddanka Ukraine loo maleynaynin sida uu noqday markii loo eego dhinaca tacticada dagaalka iyo sidoo kale markii la eego qaabka ay iskaga difaaciyaan maalin walba diyaarada ay soo ridaan gantaalo lagu soo waday ayay dhaxda uga qabtaan oo yacni qalabkii ayay haystaan marka wuxuu Mareykanku ku dadaalayaa qaabkii uu u caawin lahaa caawintu ma noqon doonto inuu Mareykanku ciidamo kuwiisa uu soo diro Ukraine oo ay ka dagaalamaan ma noqon doonto in Ukraine yacni si weyn u garab istaago oo Ruushka uu dagaal ku qaado Mareykanku laakiin caawintu waxay noqonaysaa sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka caawintaasi waxay noqon doontaa in hub iyo dhaqaale la siiyo sifa ay ula dagaalaan Ruushka wuxuu sheegay afhayeen hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka dagaalkani uu dheeraan karaa laakiin ma noqonayso in 45 milyan ee Ukraine ku nool in ay Ruushku ay hoos imaadaan oo Ruushku uu qabsato arrintaasi marnaba ma dhacayso laakiin dagaalku waqti ayuu qaadan doonaa marka halkaasi ayaa ku tusayso in Mareykanku ciidamadiisa ayna marnaba ka qayb qaadan doonin dagaalka socda dalka Ukraine waa hagaag ila xogaale wacanow waxay sheegayaan in dalka Turkey ama Turkiga in uu diyaaradihiisa uu waddankiisa ku farsameeyay qaybo kamid ah uu geeyay dalka Ukraine oo uu ku caawiyay arrintaasi maxaa ka jira dabcan waxaa laga yaabaa in dhaqaalihii loo ballan qaaday dalka Ukraine in diyaarado loo gaday oo Ruushka laga soo iibsaday kadibna Ukraine ay saa ku isticmaalayso laakiin Ruushku in diyaaradihiisa intuu halkaasi geeyo macnaha Turkiga ma noqonayso diyaaradihiisa intuu hada Ukraine geeyo inuu dhaho Ukraine wayna garab taaganahay dagaalama diyaaradaha waa kan waxaan ma dhici karto laakiin waxaa laga yaabaa hantidii iyo balaayiintii lacag tahayd midowga Yurub iyo sidoo kale wadamada Mareykanka iyo Canada ay sheegayeen inay soo gaarsiin doonaan waddanka Ukraine inay qayb ka tahay arrimaha oo diyaaradihii laga gaday kadibna arrimihii hub aruurinta hubban ku taageerayna ay ahayd midowga Yurub inay halkaasi laga yaabaa laakiin ma dhacayso in Ruushku diyaarada asaga uu qaas u leeyahay oo asaga uu hagayo in Ruushka lagu weeraro taasi ma dhici doonto oo Turkiga waxa is leedahay wuxuu si toos ah u taageerayaa dhinacan Ruushka misana waa dhexaad Turkigu in badan uu ku soo celceliyay hadalkiisa wuxuu sheegay inuu ka mid yahay ururka NATO haddana uu yahay waddanka dhexdhexaad u yahay oo arrimahan siyaasadda hadda wada hadalladan iyo waxan in asaga iyo China iyo ay kelita ay Putin war ka soo qaadi karaan kadibna fagaaraha la keeni karo madaxweyne Putin sifo dagaalka ama xabad joojinta uu uga qayb qaato waddanka Turkiga laakiin inuu Turkigu intuu ciidamo u soo diro dalka Ukraine uu dhaho Ruushka la dagaalama arrintaas lagama sugayo waa hagaag ugu dambeyntii magaalada Mariupol oo maalmihii ugu dambeysayba ay ciidamada Ruushka ku hareereysnaayeen duqeymo ba'ana ay ka wadeen ahaydna magaalooyinkii Ruushku uu xabad joojinta kaga baaqay ee loogu talagalay in shacabka laga daadgureeyo inta shacabka laga daadgureynayana Ruushku dagaal weerar ku qaadaynin waxaa laga sheegayaa in duqeymuhu si isdaba joog ay u socdaan Ruushkuna uu jabiyay ballantii uu ballan qaaday ahayd xabad joojinta weeraradii ciidamada Ruushkuna ay bilaabeen oo waliba ay ku socoto magaalada daafaheeda dagaalo toos ay ka socdaan duqa magaalada oo ka hadlay goor dhow wuxuu sheegay in afka uu furto oo yiri
ruushku dhibaatada uu ku haya meeshani waa arrin bini-aadanimada ka baxsan. bal maxaa isku soo beegay xabad joojintii ruushka uu ku dhawaaqay iyo madaxdan kaleete ee qayliyeysa iyo ruushka dhinaciisa oo sheegay inuusan isagu ballanti ka bixin oo weli ciidamaysu aysan weerar aysan gelin. santiago hortaad ogtahayba xabad joojintani waxay ahayd mid qorshaysan oo labada dhinacba ay isku afkarteen oo yacni ruushka markuu ku dhawaaqay kadibna kuwan ay soo dhaweeyeen laakiin waxay ahayd xabad joojin hal dhinaca oo ruushka xaggiisa ka imaatay arrintaasina arrin siyaasadeed ayay ahayd markii loo eego qaabka hadda ruushka u dhaqmay gantaalada ruushka waxay ku hoobanayaan magaalada Mariupol iyo magaalooyin kaleeto oo darisla halkaasi oo uu rabo ruushku in haddii magaalada Mariupol uu qabsado hadda waa artay saxaafadda adduunka aad bay u hadaleysaa magaaladani horta waa magaalo istiraatiiji magaaladani waa magaalo xeebeed aad u weyn waxayna isku xidhaa leeyahay wadan gobolkii Crimea waagi hore uu qabsanayay 2014 iyo Ukraine inteeda kale marka haddii magaaladani uu qabsado waxa istiraatiijiyad u noqonayso in horta labada gobolkan Crimea waa gobolka asaga taageersanaa ama ruushka taageersanaa uu kaga dhawaaqay xataa koleeto inay goos ay ku dhawaaqaan 2014 marka haddii uu qabsado gobolkan yacni magaaladan waxa u furmayso dhaqdhaqaaqa iyo movementiga gobolka iyo sidoo kaleeto Ukraine inteeda kaleeto waxaa sidoo kaleeto easy ama u fudud baa leeyahay ruushka inuu qabsado magaalada Kiev oo uu qabsan lahayd tan iyo intii dagaalku u socday oo yacni ciidamadiisu ay ku sii siqayaan duqeyntu ay ku socoto welina ilaa xilligan uu qabsan marka arrimo badan ay u sahlaysaa way ku adkaatay baa la dhihi karaa. Okay aad iyo aad baad u mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa Maxamed Wacane oo inoo la socodsiinaya xaaladihii ugu dambeeyay dalkaasi iyo dagaalada ka socda dalka ruushka qodobadaasi iyo qodobadaasi ayaa warkeena ugu dambeeyay warka xiga intaan ka gaadhaynana waxaan idinka tegaynaa nabadgelyo.